تلفونك سعودي ماشي أنا قصة عطانا أنا قد أقول سنة يوتيوب هتوس وجود جرنا يوتيوب هنوراضو يوتيوب هجرو افتحوا تلفونك سعودي إن واسكو صور نقدونا افتح تلفونك سعودي إن واحد كأول رسالة مقدشو يوم موريانتا يوتيوب أول شيء كيسا ومت الصومالية دبا كتقانا تلفونك جيس كيس أولي waxa meesha uga hadalaa waa mooriyaan ma hayna uma Soomaaliyeed iyo cid kale lagu jaayfeenayo wariga biilaan ma soo tagin shahba soo qaatay biya soo iloobay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واكو سلام وعليكم السلام صاحب واكو سلامي adiga dadku daawanayaba caaw waxa ka hadlaysaa موريانتي أبقى يو سوما حبرجير موريانتا سكال لنا نيو نما كان موريانتا شرطو نبى لقى حوالي المسلسل ولا صور رأي نادي له كورو يهاي وقاتين وكوري كجورو وحوالي نادي له كوري وسكت جو حدنا عند شكورنا وحو هذا ماشي اللي رادو كينيا وما دام أي دولة أود أي لا توقع كينيا وسود ونساي دول بوسي إن عبد شكور واحد كدران يعني فقي يعني عبد قيديد يا موريان كوين واحد نروش سيدا وليد بمركز خدك كرة لين مقدسة ساك الله بدينا ولا هلين واحد نروح عند نكان واحد دبده كريحة يا نمل عقد أو موريانا أو أي مقدسة دجن أو كوعب ترسدا أبقى يا حبر جدير وضدك ديجو العقد فواحد ليه موسو guriga ku adkayso annaga ku karab daagan ayuu ka cabsanaya waxay ka cabsanayaan nolosha maxay runaantii nimanka markii hore murursada nacayb baa ku jiray daarood nacayb kama ahayn daarood kursigiisa oo ku fadhiyay waxa weeyaan ninka la yiraahdo daahir ninka la yiraahdo dilay kuray Muuse Suudi waa la qabtay daawac culus baa loo geystay dadka qaar kood ay sheegayaan laakiin wuu isdhiibay idaacada wali lama wadaagin waxa weeyaan ilaaladiisana 5 qof baa la dilay saan anigu aan rajaynayo oo markaas warwaaleen gurigiina wuxuu yiri waa ka baxaya sida ugu dhaqsiya badan waxa lagu leeyahay taariikhda waa markii uu horeysay farmaajo xanaaqo waxa weeyaan halo waaku maqla waxa weeyaan waa markii uu horeysay mudan maxamed cabdullaahi farmaajo xanaaqo waxa lagu leeyahay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Mooriyaan Cabdiraxmaan Shukuur iyo ninka la yiraahdo Muuse Suudi Muuse Dameer ويس ديبين ولو موسى الدمير وحلوي أدي لا يكورو ياي وحلا كون يشب قلو الدمير بالوسينا يا صار أنا ورك يجوسو قاريو أدي لا يكورو ياي مركا نمكن وحوي مركي هرا موسى وحلها أنا جواري مرحبا جواري وحلو سينا يا ولويري دمير قادنا يا ويري يو نايل يو بلا يشتغي مركا نيكا أدي لا يكورو ياي ويس ديبي بيرتا مع صح وحوي ماشي جرا وموسى يلحو أن أدو الشوغان سياسيين أن العكترة بالقدر ريج كل نقطة صد الشركة أن أبجال هيست صدق مليون وحول العكتة كويا شيء تقولي يدل الدنيا أيه وحياة تغيير عديم موسى أكعو أنا برينا رأي مانا يا واحد أور ديالي واحد هاي موسى أديل صرفه قف كل حاجة وعريجة سياسة اللي تبتغي هاي أدو بتغيني هري هم اللغة هلا أن إيش موسى واحد دولة كدري يسددك وجه بأربعين أو شيء ماشي waxay ahayd xiran military bay ahayd ee booliska ciidanka xoogga dalka Maxamed Siyaad la jirtay waxa leedahay hoogag waaweyn oo tareenku mari karo hubba ku tuugan waxa soo sheegay oday dhaqameedkii hawiye ee la xiraayay oo soo sheegay hubabka meesha ku xabaalayeen asaga ayaa wuxuu cadeeyay in oo meesha hubbada ku aasan yahay gurigana dawladda saas ay ugu baahatay sidaas bayna ku bilaabtay hawsha in Mooryaankan leeyahay Suudi yalaxu in guriga la wajilo ka guuro صاحب هبين دو عاد وي قريسay farmaajo ayaa xanaaqay ciidankiisii ayaa wixii galay Muuse Suudi waxa loo qaaday cirib amal baa loo qaaday kabila bidaal amal sidoo kale loo dilay isagoo hadii ilaahay ku ray haaf amal loo qaaday isbitaalka la geeyay waa la soo daweeyay farmaajo waa markii uu horeysay waxa lagu leeyahay taariikhda waa markii waa labadii sano waa markii uu horeysay mudan maxamed cabdullaahi farmaajo uu xanaaqo hadii ilaahay ku royahay Muuse wuxuu waxa weeyaan hadii ilaahay ku royahay guriga waxa ku jiray 950,000 oo dameer ah oo hadii ilaahay ku royahay dameeraha caadiga oo Kenya dhulka loo raray lahaa iyo China laga iibin lahaa marka waa xoolo waxa la dhahaa xoolo abgaal baa la yiraahdaa dameeraha waxa weeyaan hadii ilaahay ku royahay
qalabkii iyo dameerihii iyo haddii ilaahay kuuraya dhashoodii iyo wuu yaabay khayra wuu yaabay iyo farmaajo waa yaabeen gurigii waa la galay dameerihii iyo wixii waa la soo haddii ilaahay kuuraya dhinac baa loo soo saaray waa la weydiiyey ninkan maxaa ka see baa lagu yidhi ninkan wuxuu yidhi gurigan waa gurigii dameeraha haddii ilaahay kuuraya aan uga dhoofin jirnay chinaha ka iibiyaan abgaal dameeruhu kiina waa tii dameeruhu haddii ilaahay kuuraya ka dhammaadeen marka waxa weeyaan ninkan hadda wuxuu yidhi waa ka baxaya maadaama uu farmaajo uu xanaaqay wuuna ka bixi doonaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan jeclahay isbuucan gudihiisa ayuu guriga ka baxayaa cabdiraxmaan cabdishakuurna wuu cararay cabdiraxmaan mooryaan waxa weeyaan waxaa lagu yidhi gacanta bidix ba adiga wax lagaga dhuftee ninkan muuse suudi gacanta midig baa qallashay waa qallashaniyo gacantii midig bbaa qallashay middaa suun kaga dhuftay askari muursada ah intuu ku xanaaqay marka waxa weeyaan muuse suudi hadda xaaladiisu waa la tacaalayaa waxa weeyaan wuuna ka guurayaa guriga weliba sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu jecel yahay inuu guriga uga guuro dadka Soomaaliya waxay soo ogeyn wixii ka horeeyay khayre intuu imaanin waxa isqarxin jiray mursadaas qarxin jiray mursade markuu noqday ra'iisul wasaare oo laga dhigay kursi uu sareeyay la geeyay oo soo wariga filanaynin awal wuxuu isku qarxinay cugdada uu qabo habar gidir iyo abgaal markuu ogaaday inay Soomaaliya kala jeceshahay oo madax laga dhigay waxay ka soo wada baxeen al-shabaabkii waxay noqdeen dawladda dad muxaafid noqdeen hadda waxa isbedelay habar gidir booskii waxa gashay mursade taas waan fahnay habar gidir waliga madax ma soo noqon waxa la dhahaa waxa madaxweyne soo noqday madaxweyne ugu horeeyay Soomaaliya waxa madaxweyne looga dhigay madaxweyne ugu horeeyay Soomaaliya asaga ayaa ugu weynaa aan ragii u soo dagaalamay Soomaaliya SYL loo yaqaanay asaga kaliya habar gidir ka ahaa dacbaan loogu dhiibay dawladna ma ahayn waxa ku meel gaar baahayd inuu transition ka saaro iyo gumaysi laga soo baxay inuu gaarsiiyo doorasho one man one vote inuu gaarsiiyo marka hawiye marka la yiraahdo bargidir waligood madaxweyne ma soo noqon waxay ka xun yihiin mursado inuu uga hormaro inuu magac yeesho oo ra'iisul wasaare noqdo oo meesha ku fariisto mursado waxay fahmeen inay ka badan yihiin marka la yiraahdo Muqdisho habargidir xoog bay ku yeelatay oo abgaal bay maanta la qaybsatay abgaal baa Soomaali ugu badan waxa ku xiga mursade waxa ku xiga maxaa ku xiga ay sheeg habargidir saas loo kala badan yahay laakiin habargidir waxa mursade ugu badan tahay waa awood iyo daddilow maanta mursade wuxuu fahmay inay yihiin dadka u dhashay Muqdisho oo uga badan habargidir waxay fahmeen al-shabaab inay sidan ugu jireen inay qasxariyaan ee Muqdisho iska burburiyaan marka habargidir wuxuu ka xun yahay sidii aanoo wariga xil qaban loo siin karaa nin mursada intaas bay al-shabaab ugu biireen intaas la gubanay intaas dawladda uga soo horjeedaan waxa kale ay ku biirsadeen mooryaan baa ku jirta lacag haysata oo lacagtan ku yeelatay dil biliqadan iyo kala dambeyn la'aantaas labadaas bay waxay rabaan inay Soomaaliya dawlad ka qadalaan ها صاحب ninka la yiraahdo gacan baa qalashay ninka la yiraahdo Muuse Suudi nin mursada wuxuu ku feeray misbaar buu ku feeray daawac culus buu geystay gacan baa qalashay saaxiib saan maqlay run ahaantii waa aragtay gacanta hadii ilaahay ku royay lamoodo yaxaas baqtiyay gacan markuu soo taagayo xalata lagu dhuftay marka calaa kulli xaal ninka la yiraahdo Muuse Suudi waxa weeyaan hadda waxa la isku hayaa waxa weeyaan ma waxa la dejiyaa afgooye mise waxa la dejiyaa guraceel maadaama niman hadii la cabdiraxmaan cabdishakuur iyo fiiqina uu laftirkiisa ay kula taliyeen inuu guraceel u aado inta uu farmaajo iyo khayr ay xilka hayaan Muuse Suudi daawaca run ahaantii wuu cararay Muuse Suudi waa nin hadii ilaahay kuuraya qalal buu qabaa qalal gargariir soo joogo hadii ilaahay kuuraya sidii muusig camal dhinac u dhaqaaqaya sidii dabeel ay wado shayto hadii ilaahay kuuraya wixii noo sheegay video clipkii ka noo soo diray wuxuu ahaa Muuse gacanta markii la xirayo oo gadaal la xirayo waa oday duqa waa shay waa 8 jir xafaayad buu xiran yahay gacanta way iska barartay maadaama duq yahay si xun loo xiray cidin ma dirin maxana la madhican nimanka mursado ciidanka xoog dalka kamidka ay soo xiraayay waxay sheegeen inaysan dirin oo oday gacanta la barartay maadaama xoog loo xiray oo gadaal gacmihiisa ku geeyay kabacdina waa la fasaxay waxa loo fasaxay jeelka weyn lama geenin lamana xirin wuxuu ogolaaday guriga inuu ka guuro laakiin markii hore waa la xirxiray bir katiir baa lagu dhajiyay kabacdina wuxuu ilaahay waa yaali inay ahli sidaayo wax dhibaana ma wado dagaalna ma horinayo mooryaan isku imaanayso gurigana waa ka baxaya sodonka bisha ka baxaya buu dhahay askari farmaajo buu ninkii u arkay oo mursada ah oo askartii markii u tageysay ahayd marka askariga farmaajo mooday ninkii hadii ilaahay ku ran yahay wuxuu damcay inuu dabaqa ka boodo gacan buu ka jabay xulama gaarsiin saan uu jeclahay
waxa weeyaan askarigii meesha waa laga saaray oo nin murursada buu ahaa shaarubo waaweyn buu lahaa siya farmaajo shuuqana farmaajo marka haddii ilaahay ku roon yahay ninkan isagaa isdhaawacay calaa kulli xaal waxa weeyaan ninkan waxaa la geenayaa guraceel waxa weeyaan xaaladiisa waa lala tacaalayaa dameerihiisii adiga ilaa 500 oo tira oo dameer ah oo guriga haddii ilaahay ku roon yahay ku jiray waa laga soo saaray dameerihii gurigii wixii ku jiray oo dhan waa la raaciyey warshada dameeraha أفتح يوسف ليش أنا وحي أنجد عيدا ميلا بدن بلادها وحي لها سقوش عند جرام بلادها هاي دول قضاء وحي لها ميل وحلوة حرسته وانك وودا ميراها بدن مركي لما مقدشوا يعني ده كان ضميرها وحي يقول بس دقم بقوتها دقم بقوتها يعني بيشك يعني ربرج يعني فيش وفانان يعني سومالان يعني جيسقات وفانان أبقال يمقدشوا دميرها دقم بقوتها دي عيب بعد كوضاي إرساقة عامسن بالوية قانا مقدشو إرساقة عامسن وحويا والرستا ويكون معاشان وحيوكسو إبسدان قرية حتى إنك عيالك يركا مركو وكبح حافظة المير بالديريا وحلورنا ياردو حالك كسو إيبي مقدشو معها dameer yar oo 3 jir la dirayaa waxa weeyaan waxa la oranayaa alaab baa la saaraya wasaqana nolosha oo dhan way ku xiran yihiin waa dameero ku xiran oo waxa weeyaan munaafacaadka oo dhan buu soo galay waxa weeyaan irsaaqada aamusan baa la yiraahdaa muqdisho dameeraha waa waxa weeyaan waa xoolahooda koowaad xitaa qaadkood gawaarida iyo dameerka jeceliin afkooda dameer baa ku haystaa mise gaari dameer aniga haysta ku leeyahay ma rabo gaari marka waxa weeyaan nimankan waa dameeraha aad uga dambeeyaan waxa weeyaan qaarkood aad way sharfaan xitaa abgaalka qaarkood dameeraha waxay u dhigaan maalin xaflada gaara abgaal iyo habargidir markay maamahayaan waxay ku maamahan dameer iyo futo wax kale kuma maamahan dameerka waxay ku jecel yihiin ma halaabo motor lagama bedelo injil lagama bedelo oil laguma shubo gas laguma shubo maartay dhibaatadiisa badan gaariga dameerka waa iska socdaa qashikuuna soo cunaya lafaha wax qarash oo ku baxay male in asaga wax uu sameeyo maahan waxba ma gelinaysid dameerka waxay ka jecel baabuurta iyo waxa maanta jira adduunka oo caalam ku dartamaayo in wax la soo saarto wana sababta abgaal iyo iga raalaha waa sababta abgaal iyo habargidir ay u heshiiyeen habargidir inta badan gawaarida ay isbaarada ka dhigata waa dareemaysaa nimankeena gawaari ma laha waa dameero waxoodu Soomaalian garan marka waa heshiis sababtaas u heshiin abgaal cid habargidir cid kale heshiisay ma aragtay aan abgaal aan hayn abgaal sababta u heshiiyeen sabab kale ma aha nimanka kale abgaal dameeraha haystaan nimanka kale ee mooryaanta isbaaray dhigtaan isbaaradan dameero looma dhigan karo marka saas ku heshiiyeen aftax su'aal baa weydiinaa maadaama siyaasadda hawiyaha ka sheekaysay si fiican u taqaan youtube-na boqolaalka kun waxay kugu daawadaan hiraab baa ka sheekaysaa hiraab yuu yahay aniga adaa kugu bartay qoraalada hiraab yuu yahay aniga hawiya aqaanay anoo hiraab waa afkaasi waa wax isku keenay waa muursada nacayb hiraab wuxuu soo baxay hiraab waagi hore ma maqal jirtay weligii ma maqal weligii ma maqashay waa 2019 ugu horeysa 2019 muursada loo soo saaranayo muursade awoodda ay ku leeyihiin muqdisho haddaad arki lahayd baa ilaahay ku keenaya muursade qof inay ka awood badan muursade si loo dagaalamo xitaa abgaalku waa baqaan moogta abgaalku ma dagaalamaan xoogaa habargidirta dagaalanta abgaalka wuxuu yaqaanaa wax dhacow lacag yeelo iyo shaqaysi ma ahan reero dagaal waa reero ma artay waa nima shaqo nin walba dameer buu leeyahay dameerka soo shaqeeya beenta maaha xitaa haddii ilaahay ku reeyo guryaha markay dhisanayaan waxay wax ku soo qaataan dhagxaanta waxay ku soo qaataan waa dameero dadkan waa dad intooda badan shaqaysto xamaasha nin dameer haystaana wax kale uma baahna ilaahay baa istaqada siiyey laakiin nimankan habargidir iyo abgaal waxay isku tageen muursade lama dagaalami karaan muursade halka nin oo muursade wuxuu u dhigmaa 100 hiraab ah way ka awood badan yihiin marka way fakareen nimankan hadii ilaahay ku reeyo Sparrow family iyo dameero family way fakareen waxay dheen aanu noqono hiraab aynu isku noqono saanu muursade aan uga guuleysano yaa la isku dhahaa marka hiraab yaa la isku dhahaa hiraab waxa la isku dhahaa habargidir iyo hadii ilaahay ku reeyo iyo abgaal iyo shiikhalo 2016 lagu soo daray marka muursade kuma jiraan hiraamiya muursada hiraab kuma jiraan muursada loo samaystaba muursada dartiis nimanka waniyo hadaad ogaan lahayd awoodda muursaduhu leeyahay yaa ilaahay ku keenla muursada dartiis baa hiraab loo samaystay hiraab ma aan maqal lahaba hiraab horma u maqashado muursada waxa la yiraahdaa karinla hawiye waa uradkii hawiye waa ninka hawiye ugu weyn oo uradkooda waa dad aan dagaalamin waa dad ganacsi ka shaqeysta waa dad aan inta badan saaxadda siyaasadda ku arki maysid isbaaro ma dhigtaan waa dad macquul oo la heshiin karo waa dad dhaqan fiican leh waa dad waxa weeyaan muursadu waa dad hadii ilaahay ku reeyay la afkaran karo oo meel lagu soo hagaagi karo laakiin nimankan kale waxa weeyaan waa nimanka isku bahaystay isbaaranimada iyo tuuganimada iyo qaraxa inay isku keenaan oo hadhow hadii ilaahay ku reeyay ay murursade iyo mareexaan ay ku weeraraan
واقرت ان سما وان صح قرتي ان هراب تفيع با قرتي هراب waxa loo sameeyay waa mursade si uu ra'iisul wasaare u noqday en waana lagu soo saaray iyo magaca lagu yeesheen biri ka maalin en meesha maanta gaaray inay ka sarmaraan maahane u malay ma inay soo noqon doonaan marka waxa aniga la yaabanahay habar gidir abgal uma socdo habar gidir waxa rabtaa iyadu inay ra'iisul wasaare noqoto en mursadana u diido sidee beerta inay ra'iisul wasaare ku noqoto habar abgaal horta ma dagaalami kara abgaal waa suudaanta oo kale suudaantu ma dagaalamaan ma ogtahay suudaantu wax ka xoog waaweyn ma jiraan mana dagaalamaan abgaal waa iska suudaan oo kale oo dad iska shaqaysta ma dagaalamaan habar gidirna muqdisho rajo kama laha habar gidir muqdisho waa laga awood badan yahay muqdisho waa laga deegaansan yahay muqdisho waa laga shacab badan yahay muqdisho martiba ku yihiin wallahi mararka qaarkood haddaad wareysatid habar gidirta joogta muqdisho haddaad wareysan lahayd wallahi waa yaabi lahayd waxa weeyaan sida adiga daarood ahaan lagu baxsanayo baa iyagana murursada ahaan waxa lagu baxsanaya habar gidir ahaan murursade iyo nimanka la yiraahdo abgaal ayaa magaalada xaq u leh waliba aan kugu dare habar gidir waxa keentay waa murursade habar gidir iyaga oo baahan iyaga oo martiya iyaga oo waxba haysan yaa murursade boos soo dajiyeen taariikhdan way ku qoran tahay habar gidir waxa keentay waa murursade habar gidir lama aqoonba meesha waxa haddaad taariikhda sii fartid ان wanaag way waa barana casharkaas maanta waxa ka bartay saaxiibkeena Cabdifatax oo aan aad u kala u falanqeeyay hawiyaha iyo hiraab waxa la yiraahdo iyo muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya oo mar walba live ka soo gala kana diyaariyo fiiriyo YouTube ku soo gala ninkan reer Facebook ma aha en haddana waa bartay sidoo kale dadkiina aan aqoonin wuxuu yahay hiraab iyo waxa yihiin mursade waa en mursade waxa la yiraahdaa 3 wax laga wadana ma aqaano en waxa la yiraahdaa adeer buu yahay en hawiyuhu wada dhashay ما مرسده وعرضك هوية كريله هوية على ده وانمنك هدي له كوري هدي جعان قادن مرسده ما هذا انت بدن أفكك الله تد سوشيال ميديا سوفريستا كبر مرسده سوشيال ميديا كعيتم ياركي مسجد كبر مرسده ضد نوعاسو كلامها ضد كاس هل مالين أيكو قبنيان هديكو قبتان سيدي يحاس سجارة عمل قبتي يحاس مركو سجارة قبتي سيمة دايو ساسة كلا كون غنيان نقطة لكن ضد كني هل مر بيت دجالمان ولا يقانا ومرسده هل كان مر أودي هدي لك وحنا حسوستا حافظ دقمة هاولا mid mursada oo meelaha soo gala si damarkii qaybiray oo dhahay habar gidir iyo aan abgal ma kala saarayno baan habeen u tagay oo la hadlay oo saarka live la hadlay waxa la saaxiibo in habar gidir waxay la kacsan tahay adiga ku diiday ra'iisul wasaaraha wuu iga diiday hadda blog buu isaaray wuxuu marka afuufa habar gidir iyo abgal wuxuu ogaaday waxa uu sheegay inay run noqotay waxa la yiraahdaa lax qabsada la yiraahdaa runtan uu sheegay bil ka hor buu maanta u soo noqday أنا لايف كيس مارك واحد ليش لاقي شيء إنه إن كهر ماضي إن حبر قدرتي أبجالكي ولا دارات ما نوقف في وحركة نسيجي وما تنوقف قرطي إن حوجنا عدو ونقول هاي واحد لوصل ما يستهرب واحد واي النجا تاسم هاي كلها هاي ninkaas saaxiib nin horta waxa weeyaan aw ku kaas weeyaan wuxuu wado isagu siyaasadna waxa kama yaqaano ninkanna waa la isku haysta ninka waxa la oran jiray daahir soodaal ma aqaanina taqaanid ninkaas ka waraya waa nin la isku haysto nin murursada la hubo ma aha dadka murursada ay la hubo waxaad ku garanaysaa dhaqankooda ku garanaysaa waa dad dhaqan wanaagsan ma aha dad inta badan xad gudba social media ku arki meesid dad caytama ma laha dadka soo caaya sida habar gidir iyo abgaal oo kale ku arki meesid dad ma aha hadii ilaahay ku raayay intay social media soo fariistaan ilaa kiisa 12 jirka ilaa 20 jirkiisu caytamaya kuma arkaysid murursade waa dad dhaqan wanaagsan waa dad dagaalama laakiin waa dad dulqaad badan waan sababta curadka hawiye loo yiri oo u yihiin oo karilaha hawiye loo yiri kacabka qoorta dhuuman baa saaxiib kala ahay dhaqankiisa marka arko sidoo wax uu soo qor marka arko sidoo daacad u yahay xitaa qabyaalada uu hadlay markii qabyaalada ay hayso waxa moodaa daarood baa moodaa wallahi dhaqankiisa ninka kale u dhahay waa noocaas oo miran socdaal ay sheegtay dahar socdaal waa oday duqa waa 8 jir runtu ka hadla qabyaalada waxay tahay daaroodna uma naxo hawiyana runtu u sheegaa waa nin waxa moodaa dhaqankiisa marka fiirsi inuu marjitan yahay soo u hadlay iyo xidiyaha ku jiro iyo siyaasadda ku jirto iyo waxa moodaaba daarood baa moodaa marka waxa yahay nimankan mursal leeyahay in aan soo qaadano oo daaroodkan ku soo darnaba ba anigu qaba oo loo dagaalamo loona dhinto xilka ra'iisul wasaaraha mar walba nin daarood soo baxana ra'iisul wasaaraha laga dhigo ayaga
murursada oo dhan saaxiib murursada oo dhan baa waxay dhaqanka daaro xitaa dhaqan ka fiican bay leeyihiin waa dad run ahaantii xaqiiqda marka laga hadlayo waxaad mararka qaarkood waxaad isweydiinaysaa war dadkan murursada la yiraahdo iyo habargidir meel isku magaalo ahayn dadkan dhaqankooda iyo markaa weystid qaabka ula hadlaysid see kula hadlayaan see kula dhaqmayaan sida ay yihiin dhaqankooda wanaagooda marka aad fiirisid murursade iyo markaad habargidir isku fiirisid waxaad oranaysaa dadkan farqiga u dhaxaya maxay yihiin su'aalo fara badan baad isweydiinaysaa niho dadkan waa dad dhaqan wanaagsan waa dad dawlad jecel waa dad dhaqan fiican jecel waa dad dadka la noolaan kara ninka murursade muqdisho meelaha haddii ilaahay ku royahay guryaha isaaqa iyo guryaha daaroodku ay ku yaaleen waa meelaha ay murursadu degnaayeen meelaha murursadu ay degnaayeen weeyaan waa dad kaliya aan xaaraan lagu aqoon waa dad kaliya aan dhac lagu aqoon dawlad ma yaqaanaan waa ganacsadaan ma garatay waa dad haddii ilaahay ku royahay ganacsigoodu ka badan yahay ma aha nin isbaaro u ooyaya iyo kursi yar oo farmaasho daba jooga ma aha dad ganacsigoodu banaanka yahay weeyaan waa dad kuna dilaya kuna nooleynaya labadaas wax ka dhaxaya ma jiraan waana ku dilaya nimankaasi waana ku nooleynaya waana sharafna waa yaqaanaan kumana saqajaan nin murursada ah oo social media soo fariista oo wax caaya haddaad aragtid murursada saxa maaha ninka waxbaa ku jira anigu dhaqankooda waa bartay waxay yihiin waa bartay aqoon waan u leeyahay laakiin murursada iyo hawiye saaxiib weliba nimankan xawaadle iyo gaaljecel ma sheegi karo laakiin hiraab iyo murursade isku dhaqan maaha saaxiib dhegeyso maanta Soomaaliya waxa ka jirta dawlad lagu soo doortay qabyaalad iyo qabiil lagu soo doortay oo 4.5 ku dhisan daaroodku waxay leeyihiin farmaajo meesha ugu soreyso daarood oo dhan dawladdu waa taageersan yahay waxayna ku xirmeynayaan kursigu farmaajo ku fadhiyo kaba soo qaadba inay ka soo horjeedaan qayrana waxay ku xirmeynayaan farmaajo dawladdu waxay noqotay dawladdu daaroodku taageero waxa murursada ka ahayn way ka soo horjeedaan dawladda waxayna u nacab yihiin maaha farmaajo way og yihiin farmaajo meesha xaq u leeyahay la soo doortay 4 sano uu dhameysanayo daaroodna uu matalayo waxay ka soo horjeedaan waa qayre iyo murursada ahaan sidee bay markay murursada ku noqonayaan niman hawiye aamini kara biri markuu xilka ka dhamaysto mise xilka laga qaado 2 sano ka bacdi sidee bay murursada ku aamini doonaa habargir haday xil ku farsato iyo haduu abkal ku farsato sidee bay u taageeri doonaan oo muqdisho lagu deganaa doonaa horta nin runta markii madaxweynaha la doortay idaacadaha waxa ku jira nin habargidir la soo doortay oo suuq oo dhan baa ku jirtay ra'iisul wasaare waxa laga soo dhigay nin habargidir oo hiraaba waliba habargidir hiraaba oo ku kacsi midna aan ku sheegay saaxiibka cali horta habargidir hadii ay wadanka qabsadaan oo ay wax maamulaan muqdisho maamulkooda ma soo dhaafayo cid wax ku darsanaysa ma jirto cid maamulkooda rabtaa ma jirto cid wax ku darsanaysa oo qaabka ay ula dhaqmayaan dawladda ay ula dhaqmayaan qaabkii ay abgaal dawladda ula dhaqmayaan baa loo jeedaa cid wax ku falaysaa ma jirto haddii sanadkan uu murursada uu soo noqon waayo Soomaaliya waa lagu kala yaacaya sababtoo ah Soomaalidu way isbaratay qabiilba waxba lagu caayaa dad dhaqan lagu caayayo isbaaro waa dareemi karaysaa qabiilka yihiin waa habargidir waxa weeyaan nimankan wajigii waa iska xumayeen oo nimankii isku deegaanka ahaayeen waa isku direen oo waxa weeyaan murursadana waa isku direen daaroodkii dalka haddii ay madaxweyne ka noqon lahaayeen waa isku direen labadiiba waa isku direen meel ay maanta u cararaan ma jiro xitaa maalintii u dambeysay maamulka galmudug waxaa laga mamnuucay maamulada qaarkood inay kasoo qayb gasho xitaa arrintu way ka tagtay qabiil maamulada xitaa bay tagtay arrintu waa dareemi karaysaa anigu waxaan leeyahay saaxiib gacali iyo nimankaas anigu waxaan jeclaan lahaa nimankaa murursade waxa weeyaan daarood dhaqankooda oo kale ayay leeyihiin nimankaas muqdisho haddii ayna maamulayn cid u dhawaanaysa muqdisho inay jirin muqdisho ha looga dareero ha looga yaaco inayna ku jirin saas aan laanu anigu waxaan hubaa oo ilaahay ugu og yahay maalintii la doortay nin murursada habargidir inay mucaarad maalintaas ay noqotay Soomaaliya waxa ka jirtay xulufays wax la yiraahdo ayadoo qabiil isku diray daarood iyo hawiye mareexaan iyo habargidir saaxiibo ahaayeen is xulufaysta abgaal iyo marjeete xulufay ahaayeen haddii nin la soo dooran lahaa abgaala ra'iisul wasaaraha wuxuu keenaa ugu horeeyo nin marjeeteena nin habargidir haddii madaxweyne laga dhigay wuxuu keenaa nin mareexaana waxa la keenay nin mareexaana farmaajo la yiraahdo siyaasadii wuu bedelay waxa uu keenay in aan la filaynin oo murursada ah abgaal maalintaas wuxuu qaatay go'aan ah dawladda inuu mucaarad ku yahay kooda siyaasiga iyo kooda mooryaanka iyo kooda hadda uurka ku jiro intaba waxay ku heshiiyeen in dawladdan ay tahay dawlad dhinacooda ay uga soo horjeedaan waxa marka dhacday abgaal saaxiib siyaasadoodu dameer ma dhaafsiisana siyaasadda abgaal saaxiib dameer ma dhaafsiisana iyo cashuur dameer iyo haddii ilaahay kuuraya sheeka dameer hadda markii u dambeeyey maadaama Kenya dameeruhu ka dhamaadeen heshiis waxay la gelayeen waa Kenya
oo Kenya ayay heshiis kula jireen marka nimanka siyaasadoodu awalba waxa weeyaan markii hore waa la aamini jiray oo niman Muqdisho ay ku koobno siyaasadoodu ahayd laakiin hadda xadka ka baxeen habar gidib bay ku xirteen Soomaalidii way iska saareen cid rabtaa ma jirto cid soo dhaweynaysa ma jirto madaxdooda ninka laga reebo Sheekh Shariif marka laga reebo cid wax ku faleystaa ma jirto iyo aadan cadde Allah u naxariisto madaxweynaha hore dalka Soomaaliya ee u horeeyay waa niman run ahaantii ku darsaday dadkaas habar gidir ee Soomaaliya laga takoray qabiilka kaliya ee Soomaaliya laga takoray waa habar gidir waxaad arkaysaa miyaad aragtay qabiil kale oo mucaarad lagu yaano habar gidir aan ahayn ma jiro yani waxaana mucaarad lagu yahay dadka isbaara u dhigtaan dadka dilaan dadka dhacaan waxna ma bartaan aqoonna ma laha marka waxa loo baahan yahay habar gidir in la iska qabto ummad Soomaaliyeed isku tagaan abgaal marka hore ugu xishooday labadii sano u horeysay wuxuu xishoonayay wuxuu dhahay maadaama soo noqonay laba jeer xil soo qabanay madax soo noqonay maanta xishoodo aamusa hadda laakiin xishoodkii wuxuu ka soo baxay dawladdu markay shaqadeedii qabsatay oo loo imaaday Muuse oo aan 8 jir ah oo la warguriga dawladda ka bax markaas mucaaradnimadii bilaabeen waxa annaga naloo socdaa odayga ugu weynaa ugu dameeraha badnaa hadii la soo weeraray birina annaga naloo imaanaya marka ayagu halkaas ugu hormaaday dawladda markii hore dawladda wala socdeen wayna taageersanayeen wayna ka aamusnay intooda badan dhex bay ka hayeen habar gidirna aamus ma dhihin dawladdana ma dhihin la shaqeeya dawladdana lama shaqeynay way ka aamuseen waxay anagu xil waa soo qabanay haddana labada sano waa afarta sano oo u aamusnaanayna hadda waxay taagan tahay marka habar gidiray mursada sidee laga yeelayaa hadda dhahdeen nimankan hawiye ma aha niman matali karaan from day 1 la soo doorto dawladdan ka hor imaadeen mursada laga dhigay rasuul wasaare mursada niman matalayo sidee bay mursada biri ku aaminaysaa rasuul wasaaraha ee soo socda ee habar gidir taasaan anigu la yaabanahay xitaa daawodka kale xitaa iska daa mursadu xitaa maanta mursade xitaa ma aaminayaan u fiirso mucaaradka u horeeya ee magaalada Muqdisho ka bilowda mursadu noqonaya hadii la soo doorto nin habar gidira ama nin abgaala hadii la soo doorto mucaarad mid kale mursada la isku soo jeediyo mursada ilaahay ha ka jeediyo lagu duceystaa mursada hadii mucaarad ku noqdaan toos bay ku soo weerarayaan waxa weeyaan ciyaalkooda isku maqrixnayaan ciyaalkooda baabi maayaan dawladda fooday maayaan waa ku abaarayaan toos bay ku imaanayaan wax ku leeyihiin noo maamuleys wana mucaaradka la garan karo la fahmi karo wana rag awood leh Muqdisho iyaga la iska leh Muqdisho iyaga abgaal baale waa kow mid labaad waxa weeyaan ninka la yiraahdo Muuse Suudi waa suuxay nin farmaajo weeg buu arkay xaray wuu suuxay adacadu way qariyeen inta badan cidna looma sheegin inta badan waa la qariyaa maadaama hadii Ilaahay ku royahay nin marka dhibaato loo geysto ama la yiraahdo guriga ka bax waxa weeyaan Muuse Suudi wuu isdiibay Muuse Suudi qali iyo buug intuu soo qaatay subrologadii hadii Ilaahay ku royahay uu yiri Cabdullaahi Yuusuf ay dhintay oo intuu soo qaatay ayuu yiri waa beentay waa idinku qaldamay farmaajo iyo cafi saacadan buu farmaajo iska bariyay oo la farmaajo hay cafiyo oo madaxweynihii wadanka wax noo soo qabtay waa madaxweynihii dalka hawada noo keenay waa madaxweynaha hadii uu sii joogo dameeruhu ay noo badanayaan kharashaad fara badan dameeraha badanaya dalka Kenya imaanaya sidaas wax loo fahansiiyaa isaga siyaasadiisu waa dameeraha in looga sheekay oo la dhaho dameeruhu ay imaanayaan way barakoobayaan saddex bay u dhalayaan hadii Ilaahay ku royahay wixii oo dhan uu farmaajo ula tagay wuxuu yiri hadii Ilaahay ku royahay nacafi waan ku qaldanay martan ba faaraha gali meeno guriga waa ka guureynaa gurigan maalinta ba nagu arki meesid waxaanu ka inaan nacafisid farmaajo wuxuu yiri waa ku cafiyaa dambe dusha laga saari maayo nin Mooriyaana tahay oo hadii Ilaahay ku royahay horjooga ah wala iska cafiyaa guriga ka bax waxa laga yaabaa isbuuca soo socda inuu ama afgooda u guuro ama guraceel maadaama gabadhiisa la koowaad xaaskiisu ay tahay gabar habar gidira inuu guraceel u guuro ama uu afgooda u guuro macquula aad uma saddex intaas ku soo gabagabeynayna qofkii kuwana qaadanaya anagu waa u sheegnay anagu meeshan hawiye isku dirino hawiye waxaan noolaado cadowga sax u noolaado laakiinse waa inay la shaqeystaan mursade waa niman hawiye waa ninkii ugu weynaa waa curudkoodii waa markii uu wareysay rasuul wasaare heleen waa niyadii inay soo bixeen la shaqeeyaan nin codkara loo keenay nin aqli badan ba loo keenay ninka Soomaali u aqoonta badan ba loo keenay ninka Soomaali u lacagta badan oo xalaal u ku shaqeystay ba loo keenay waxaba filayay in la yiraahdo madaxweynaha soo socday farmaajada ugu bedelayo asaga ha laga dhigo marka ma ahayn inaa sidii yeeydi habar gidiray ka daba yaacdaan ninkan xagataan wax xunteen qabiil inta soo dhaafteen daarood nacayb iyo dir nacayb iyo raxan nacayb baahawi nacayb dhexdiina ka abuurteen taasna wax loo dulqaadan kara ma aha wallahi waxa laga yaabaa inay go'aan habargii maxalli jiro mursade ay ku biiraan daarood iyo qabiilada kale waana dhib ay u geysateen waxa hore ku bilaabay showgan markii aan live ka soo galay waxaan dhahay
مرصده وحوا على الشباب ونسقرحين جري نكان وني عدي وحو كراهي ما قرصدان markay mucaaradiyeen nimankan مرصده والله ka xigaan inay dhintaan hadii wax yar ay iyagu u baahan yihiin loo diido ان صدق sano ee Soomaaliya soo socotana ayaga ku xumeynay si walbana muqsay ka yeelay waan mana cabsanin dad yarna ma aha fanaaniinta ugu waaweyn ee maanta la dhageysto iyo dadka u aqoonta badan ee maanta la yaqaan waa mursade hawiya ugu aqoonta badan ka soo jeeda habargidir wuxuu noqonayaa fiqir magaciisa ma qori karo inaad soo gabagabay waxa ku soo gabagabaynaysid ummadan la wadaag waan mahadsan tahay ما يعني waxa ku soo gabagabeynaya anigu waxa weeyaan anigu lama yaabin hadda anigu madaxweynaha kale lama yaabani waxa la yaabanayaa madaxweynaha dambe ee soo socda ee habargidir ama abgaal oo rajo kale inuu maanta muqdisho maamulo mursado oo ku nool rabrad baa lagu qaadayaa nimankan waxa weeyaan hadii dagaalamaan waa khalaas saaxiib hadii ku qabtaan nimankan kuma sii deynayaan niyo waxa weeyaan waxaan leeyahay niyo nimankaas waxa weeyaan mursade iska cafiya raali gelin ka dalbada nimanka iyaga muqdisho leh hadii kale waxa weeyaan nimankan hadii ay idin qabtaan waxa weeyaan hadhow mursadana qabtay iyo xaaladdu waa sii xumaanaysa hiraab waxa la yiraahdo mursada loo sameystay mursadana run ahaantii wuu maqlayaa mursado waxa weeyaan waad maqlaysaa dawladda soo socota dawladdaas hadii aad cafisaan oo aad wax ka sheegtaan run ahaantii waxa weeyaan oo aad cafisaan waxa tiin dad guna waa in dawladda dambe oo soo socota abgaal iyo habargidir aad dhamaysaan oo aad xasuuqdaan wax xasuuq kartaan intaasaan ku soo gabagabeynaya sax ay aad ba u mahadsan tahay ayada صاحبك uu baxay waxaan uu ku soo gabagabaynayaa hawiyo mursal la shaqeeyo soo birini la shaqeeyo waa walaalkiin booskiinu madaraya qabiil baa lagu joogaa hadii maanta la keen lahaa nin kale marjeeteena hadii la keen lahaa baraay kale ka hor imaada waxaan idin keenay ninkii uu aqoonta badnaa ugu codkarsana ugu firfircoona ee ka soo jeeda ummadda Soomaaliyeed uu ka dhashay beeshan la yiraaho en mursade oo ilaahay ka dhigay nin hawiya meesha la shaqeyn lahaydeen waxa ka doorateen habar gidiray in la keen lahaa fiqi 2016kii aqoonta Soomaaliyeed inuu leeyahay codkar ugu maleynayay ninka saddexaad loo maleynay inuu noqonayo madaxweynaha fiqi buu ahaa maanta marka arinta labiskiisa soo u hadlayo sidoo u taagan yahay meesha is dhigay wallahi bilaahda in ay koobka wax lagu siiyo inaad wax ku siisateen waa shal ninkii loo maleynay 2016kii laba sano ka hor ninkii madaxweyne u qalmay labadaas sano bal hadduu aamus lahaa dhuuma lahaa xitaa hadduu ka xun yahay inuu farmaajo wax kula heshiiyeen xaq buu u leeyahay halkan nin oo maanta dhigi kara xaq buu u leeyahay rasuul wasaare inuu noqdo eed xaq buu u leeyahay inuu mucaarad noqdo waa fiqi meesha maanta la soo saaray farmaajo oo habar gidir ee dooratay waxa u dhiibay oo xildhibaanada isaga dooran lahaa ku wareejiyay fiqi buu ahaa wax walba waa ogna laakiin sidoo uu dhaqmay sidoo uu hadlay behavior-ku sameeyay waxay ka tuurtay future-kiisa inuu noqday ninka ugu hooseeya Soomaaliya maanta xildhibaanada ku jira waxaadna isaga meesha is dhigay suuqu iska saaray aniga bochar baan sheegay anigu siyaasi ma ihi wariye ma ihi aqoonyahan ma ihi professor ma ihi nin lacag ma ihi wadaad maxaadareyn ma ahay 400 qof hadda igu daawanaysan ana is soo saaray marka waxa loo baahan yahay fiqi inuu soo saaro soo saarniinkiisa waxay inuu aamuso intuu hal maalin hadoo yiraahdo farmaajo saan buu ii galay anigana soo saaray madaxweyne ka dhigay bum la waayo xashi Axmed laftigiisa maalintii laga guuleystay Turki u guuro وصلنا 2020 ما أنت كده من تصدق بلاد مدحوينه وعرودي لها شرفوا لها لكن ما أنت أصدق يفقي اسكو ملبي بيكعب بيان ما حن إنه أنا قد دارو حنا أمني عمنا سياسيين تهوية كل اسكو ترينه أيها ماشي أصدقائي أيها أساقو اسكره أيها سياسة دو الميل وغدعي marka waxaan uga soo horjeednaa dhaqankooda iyo hab dhaqankooda iyo si u dhaqmayaan 20 nin oo habar gidir u badan ba maanta dhood waxa laga guuleystay xildhibaanada waxa la yiraahday uma sheegayno wadanka waxa ka jira iyo nabadiisa iyo dadka soo weeraray siyaasadda uma gudbinayno beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed idaacadda banaanka joogaysa baa loo codeeyay waa laga codbatay 20 nin 19 nin oo habar gidir iyo abgaala يا هل منو الرحوينة بالباب كيستاجي قاب ولا يعود ولا يعبطي سيت باك ما نبغى رأينا أو كم بدنا سداد كان هذا دعتها هذا عدالك شغيل سيد فريسو ولا يراي واحد كريه سمينا هذا كل مكان في سوق حلميين دad كنا يا سوق أنت سوق اللايف كسيدا أودق إنه أودق ماين كليه واحد سوسنا يان يعني هويها كلا إنه أركان
oo ayaga taageersan oo qabyaaladda ka taageersan inay istusiyaan waxay iloobeen xasanadii iyo baarlamaankii iyo wadanimadii iyo xilkii ummadda Soomaaliyeed u hayeen meel bay iska saareen waxay u shaqeynayaan mooryaannimo bay dadka tusinayeen mooryaannimo la soo istaagay albaabka wallahi billahi tollahi waa naxay ما هكرينا هذا الكود فيرسين وإنا فيرس حبدقهم كود سيدا وتجين سيدا ما تي إن ملها إن أودق دقاقيا كريه فيري دتك استوسايان ما هين إن الدولة إن إدعاءات كتاعي واحد قبلنا شغل قبلنا حديد خلدن تهاي يا حديد ساعتها عطبة لقاضي ولا جراي وأوجد عندها وشنا حضرت في الصومال على قصة صومالي عطك على جرايو ما نسا من صو العقب يلاقي كسي دتك العقب ولا يبسا برمانك يبسو فرماجة وعيري كرتا لكن قانون لو عيريو يا سياسة يا جيم وين بلو بايا ديل waxa kugu taageerada tusi laakiin hada si mooriyada u dhaqantay in adeerka ba ku nacaya asaga codkiisa wuxuu siinay ninkii cadawgaaga ahaa habar gidir sanadkan maanta lagu jiro en habar gidir sanadkan maanta lagu jiro dad bay soo wacaya gabartan hawiya soo wacaytata oo tigsiyasha garaacda مرة ماشي يوتيوب أنا يوتيوب دتك داونيان واحد ربع إنه شرف إلى حتى ودتك لو بيو إن مرة بينا كل يرادو دتك إن يوتيوب صار في يوم تفتري يوتيوب كذا وقتان إن حدي إن دديني أديركيني أبين مسكري اللايف كان واحد ترى أديك سو ما أنت اللايف وصل قري وحكى كذا مقدسه يدمرها كله إن اللايف كيسي واحد كذا وقري إن يوتيوب كان إن طبعا كن أنا واحد بلا واحد قري تمام في يوم قري ما أنا بباني شيء واحد مغرب وأركز على دتك الرعاة ما عندك دتك قرية صل قري لا أنت قفل الرعاة يعني وحو ku socda 10 kun ba buuxinaya weekend 10000 followers waa helaya weekend dhexisa so waxaan u baahanahay ina aadaan meeshiinaan 1400 doolarso in subscribe isiya raaca wani bariya iga tahay nin walba tahay shaqo walba tahay youtube-ka 10 kun ba weekend buuxinaya kam mid noqo sharaad baan sameynaya